السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتين داوديال halkaad naga daawanaysaan waa degdeg TV fadlan haddii tahay markii kugu horeysato boqorta janaalka waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarto janaalka gambaraalka aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya muuqaalada halkan aan soo gelino like saarto videogaad hadda daawanaysid siina share garayso asxaabtaada la wadaagto qaybta hoosena aad noogu reebto wixii aad ka dhihi lahayd muuqaalkan haddaba fanaanka caanka ee Dayaxdal Nuurshe ayaa si adag uga hadlay dadka ka faafiyay been abuurka ee baraha bulshada. Dayaxdal Nuurshe ayaa si carar leh uga hadlay arrintaasi waxaana bartiisa Facebook uu ku soo qoray hadal canaan ah oo uu jeedinayo dhammaan dadka ka been abuurtay baraha bulshada sida YouTube-ka iyo Facebook ee ku baahiyay in fanaanka caanka ee Dayaxdal Nuurshe iyo xaaskiisa Farxiya ay kala tageen isla markaana uu guursaday gabar kale. Dayaxdal Nuurshe oo si carar leh uga hadlay arrintaasi ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray hadal u qornaa sida tan ugu horeyn wuxuu salaamay bulshada ku taxan bartiisa Facebook wuxuuna yiri waad waalateen waliba xadka ayaad wada dhaafteen dhammaan dadka beenalayaasha ah Farxiya ma aan xaaskeyga kaliya ee waa caruurteyda hooyadood kaliya intaasna ma ahee waa saaxiibtay waa taladeyda waa nolosheyda waa farxadeyda waa go'aankeyga koowaad cidna si gaar ah uma ataagayo balse faraha kala baxa arrimaha aniga iyo xaaskeyga dadka waaweyn ee YouTube-yada ku soo qoraya Farxiyo iyo Dayax baa kala tagay ama gabar kale la guursaday waxba uma dhimayo gabdhaha Islaameed ayadana faraha ka qaada beentana ka daaya fadlan Dayax hadalkiisa sii wata ayaa intaas ku daray Farxiyo waxaan ku doortay caqli aqoon karti go'aan xishood afgaabni deganaan qaabka iyo kalsoonida wajigeeda ka muuqda intaas bay ila nooshahay maalinna cid codkeeda maqlay idinkuma jiro dhamaantiin gabadhaasi waa dayuurad aan baalasheedu cid qaban kartaan jirin Farxiyana heerkaasi lama yeeso ee nolosheeda ay ku nooshahay gurigeeda ay ku nooshahay waxa looga yaqaanaa ama laga yiraahdaa boos oo micnihiisu yahay mudane hadalkaasi waxa bartiisa Facebook ku soo qoray Dayaxdal Nuurshe oo u hiilinaya xaaskiisa isla markaana u hanjabay ama tusay waxa ay u tahay Farxiyo dadka ka been abuuranaya ee baraha bulshada ku faafinaya asaga iyo xaaskiisa in ay kala tageen ama Dayaxdal Nuurshe uu guursaday gabar kale sidoo kale wuxuu ka hadlay in aysan jirin wax dumar ah oo hadda xiriir loo wado oo isla markaana uu guursan rabo taasina meesha ay ka saarayso wararka sheegaya in ay isguursan rabaan gabadha social media kamid ah gabdhaha ugu caansan ayuu qurux iyo gabar kale oo lagu sheegay magaca Zamzam sidaasina Dayaxdal Nuurshe ayaa ku beeniyay wararkaas waxaana uu hiliyay xaaskiisa uu bartiisa Facebook uu aad ugu amaanay tusayna in cid kale uusan u baahnayn inta ay dunida ku nooshahay Farxiya sidaasi waxa bartiisa Facebook ku soo qoray Dayaxdal Nuurshe oo u digay dhammaan dadka ka been abuurtay ee baraha bulshada isticmaala